madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa maanta warqadaha aqoonsiga safiirnimo ka gudoomay danjiraha cusub ee dowladda Hindiya Ambassador Farinder Kumar Baul. danjiraha ayaa dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed uga mahadceliyay soo dhaweynta loo sameeyay iyo qaabilaadda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isagoo rajo wanaagsan ka muujiyay kobaca iskaashiga labada dal dhinacyada waxbarashada, caafimaadka, ganacsiga iyo socodka. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa danjiraha cusub la wadaagay horumarka muuqda ee dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed ay ku tilaabsadeen muddadii la soo dhaafay, gaar ahaan dib u habeynta laamaha ammaanka, dhaqaalaha, deyn cafinta, dib u dhiska ciidamada, xoojinta dimuqraadiyadda, la dagaalanka argagixisada iyo musuqmaasuqa. Cabdirashiid Xaashi, agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya, ayaa ka warbixiyay qaabilaadda danjire Kumar, isagoo sheegay in tilaabadaasi ay muujinayso dadaalada miro dhalka ah ee dowladda Soomaaliya gelisay xoojinta xiriirka iyo iskaashiga dalalka caalamka ee dan wadaagga la tahay Soomaaliya. maanta ay taariikhdu tahay 29 bisha May sanadka 2021 madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu warqadaha aqoonsiga danjiranimo ka gudoomay safiirka cusub ee jamhuuriyadda Hindiya u fadhiyi doona dalkeena mudane Dr. Farinder Kumar Baul. danjiraha cusub waxa uu horeynba madaxweynaha jamhuuriyadda soo gaarsiiyay dhambaal iyo salaan uu ka waday madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha dalkiisa. waxaa sidoo kale uu ka mahadnaqay soo dhaweynta diiran ee shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed ay u muujiyeen. waxa uu soo bandhigay qorshayaasha uu ku horumarinayo xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal, gaar ahaanna waxa uu safiirku hoosta ka xariiqay xiriirka ganacsi ee labada dal iyo maalgashiga kaabayaasha dhaqaalaha iyo waxbarashada. madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa danjiraha cusub la wadaagay guulaha muuqda ee shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed ay ka xaqiijiyeen dib u dhiska dalka, xoojinta dimuqraadiyadda, dib u heshiisiinta, adkeynta midnimada, la dagaalanka argagixisada iyo musuqmaasuqa. madaxweyne Farmaajo ayaa danjiraha cusub ugu hambalyeeyay xilka cusub ee loo magacaabay, isaga uu xaqiijiyay inuu kala kulmi doono shacabka iyo dowladda wada shaqeyn iyo soo dhaweyn wanaagsan. Maxamed Nuur Axmed, warbaahinta Nation, Muqdisho.